السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين سو دوادا مركله وان idin ka raali gelinayna cilad farsamo oo nala soo diristay ayaa jirtay oo aan jecelnahay inaan ka cudur daarano martida nala joogta iyo dhageystayaashii aan u ballan qaadnay doodan sida tooska ah boggeena oga baxaysaba waxaan jecelnahay mar kale inaan dadka xasuusino mawduuca doodeenan in uu yahay arrimaha abaaraha waliba waxaan jecelnahay qodobka aan ku qaada dhigeena inuu yahay muwaadinka ma helaa digniinaha qataraha abaaraha iyo daadadka waxaan jecelnahay intaanan wax kale u gelin mawduucan warbixin sharaxaad dheeri ah ka bixinaysa oo uu ka diyaariyay Cabdifataax Cabdille ka dhaca abaaro daadad iyo biyo la'aan soo noqnoqda kuwaas oo saameeya dadka dunyada iyo waliba nolosha maalinlaha ah waxa isweydiin mudan dadku ma yihiin kuwa ku baraarugsan qatarahaasi dhanka kale dadku ma helaan wararka hordhaca ah ee la xiriira qataraha soo socda si ay iskugu diyaariyaan walana falgalaan abaaraha iyo fatahaadaha doodeena caawa waxaan ku faaqidi doonaa helitaanka digniinaha hordhaca ah ee la xiriira abaaraha iyo daadadka Soomaaliya ka dhaca dooda baraarug waxay ku saabsan tahay sida dadku u helaan fariimaha digniinaha hordhaca ah iyo sida ay uga caawin karto inay ka badbaadaan saameynta musiibooyinka sida abaaraha doodeena waxay u furan tahay cid walba codkaaga iyo waliba khibradaadu waxay badbaadin karaan dad badan oo ay abaaruhu si ba'an u saameeyaan isla markaasna waxayna fahamsiin doontaa sida digniinaha ku saabsan khataraha ay u gaaraan bulshada iyo deegaanada aad ku nooshahay doodani waxay ka baxaysaa 15 idaacadood oo ku kala yaala gobolada dalka Soomaaliya codkaagu waa noo muhiim doodana si toos ah uga qayb qaado sidoo kale waxaad fariintaada gaaban noogu soo diri kartaa lambarka gaaban ee 28 eber dirista fariintu waa lacag la'aan waxaadna ka soo diri kartaa Hormuud iyo Goolis sidoo kale waxaad noogu soo diri kartaa dhanka WhatsApp-ka lambarka 2527 eber 66644 Cabdirasaaq Cabdifataax aad baad u mahadsan tahay mawduuca aan ku sheegnayba ha ilaawina inaad ka qayb qaadato martida caawa nala joogta aan ku bilaabo Cabdiraxmaan Maxamed Diriq wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland oo nala fadhiya istuudiyaheena magaalada Nairobi Dr. Khaliif Xasan Xareed cilmi baare wax badan ka og abaaraha dalka Soomaaliya ku soo noqnoqday Ahmed Cabdi Cismaan beeraley degan degmada Afgooye gobolka Shabeellada Dhexe saddexdiinaba ku soo dhawaada doodeena baraarug bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhawahay teamka baraarug aad u mahadsantihiin waa dood runtii aad u qiimo badan soo dhaweynaya barnaamijkan ka qayb qaadano oo mahad celinaya teamka ka qayb qaadanaya kale Dr. Khaliif iyo Dr. Ahmed iyo aad u mahadsantihiin أحمد يا خليف إذا كنا سود هذا صوماليا خدك توصل جبتان ودونا وري عطاش أذيك وسيركي أصحاب هذا نجا مغليسة وهبي من أكثر رمضان كريم وأنا كمان سنتي برامج كانت حلقة مهمة كوسو هذا السنة السلام عليكم بدو ما ستين وحقاك مواطن كمهلا فريمها اللوجة دي أغارها وموضوع أن رمنا نصفي عن عوا أو سعب بحسنه إن شاشة اللمبر باسارن أو واتس أب عدكاga ku reebi kartaa mawduuca waxa weeyaan marka la hadaan ku celiyo muwaadinka ma hela digniinaha qataraha kadiga ee abaaraha iyo daadadka sida aad ku maqlayseen sharaxaadii Cabdifataaxba abaaro badan baa dalka ka jira oo runtii aad looga dayrinayo wasiirka gargaarka Jubbaland baa ila jooga oo isaga galabta ka soo noqday dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado degmada Doolow oo dhowr maalmood ay halkaas ku sugnaayeen Cabdiraxmaan Maxamed Diriq saacadii wasiir ku soo dhawaad doodeena baraarug hal daqiiqo waxaad naga siisaa waxaad soo aragtay kadib su'aalahan u gali doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim waa masantahay Atoosh sidaad sheegtayba 1 minute ama 2 minute baan ku soo koobayaa deegaanada Jubbaland waxaa ka jira runtii abaar aad u daran abaartaasi Soomaaliya oo dhan bay ka jirtay geeska Afrikaba Jubbaland runtii culays weyn iyo arrintaas naga ka haysata abaarta dhammaan saddexda gobol ee Jubbaland ka kooban tahay abaartu ka jirtaa saameynteedu aad bay u daran tahay dadka iyo xoolaha way saameysay biyo la'aan badan baa jirta biyo la'aan badan cunto la'aan baa jirta barakac badan baa jira
labadii bilood hadda u dambeeyey ilaa bishii koowaad iyo bishan hadda ku dhex jirraba waxaa waday safarro aan ugu kurgelaynay xaaladaasi oonu dadka ku wacyigelinaynay oonu ku abaabulaynay waxaanu tagnay degmooyinka Doobley degmada Afmadow degmada Badhaadhe degmada Ceelwaaq degmada Doolow oo aanu maanta ka soo baxnay tiimkanagii guddida abaaraha guddida gurmadka abaaraha ee madaxweynaha Jubbaland uu magacaabay wasiirka biyaha oo qayb ka ahaa iyo aniga iyo tiim kale waxaanu ku soo aragnay runtii xaalad daran oo aan runtii aad suuraysan karin oo duruuf adag ah oo deegaanadaas ka jirta waxa noogu muhiimsan aan u tageynana waxay ahayd dowladda Jubbaland waxay magacawday guddida gurmadka abaaraha waxaan samaynay guddi heer degma oo degmooyinka Jubbaland hadda ka wada dhaqangalay inaan markaa isku xidhu samayno abaabul ka samayno u kurgalasay shaqooyinka u socdaan gurmashada dadka ah yaanu waxa weeye barnaamijkaasi u tageynay deegaanadaasi waana sii wadi doonaa insha Allah degmooyinka dhimanayna wasiir aad baad u mahadsantahay su-aasha koowaad ee mawduuceen caawa haddaan u galno waxa weeyaan cabdiraxmaanow digniin hordhaca marka la yidhaahdo oo ka digaysa abaaro soo socda maxay tahay bal tusaale naga sii ma digniinaha dhaqanka ee qiyaasta xilliyada guga dayrta xidiga waxa loo yaqaanaa mise waa digniinaha cilmiga ku dhisan waa mahadsan tahay runtii dhulkeenna Soomaaliya si guud ahaaneed laba khatarood oo waaweyn baa runtii mar walba dadkeenu la daala dhacayaan oo mar walba soo laalaata waa khatarta abaarta iyo khatarta fatahaadaha waad ogtiin waxay ka dhacay waddanka Soomaaliya 2023 bilowgeedii taas oo runtii saameyn badan yeelatay haddana abaar weyn baa jirta waddankan ka jirta taasi dadka looga digo ama ay ogaadaan ama xaaladdeeda ay ogaadaan runtii dadku siyaalo badan baan annaga ka dowladdan Jubbaland ku soo qaato yaanu u samaynaa wacyigelin iyo digniinaha way kala daran yihiin mar walba fatahaaduhu waa nooc gaara waa midda sida inta badan degdega ku timaada abaaruhu waa wax runtii dadku in badan oo kamid ah visible ay arki karaan oo u muuqata dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan khatarta soo foolle waxyaalaha aanu ku ogaano annagu ama ka dowlad ahaan waxaa kamid ah oo ugu laba shay baanu adeegsanaa kow saadaasha dhaqameedka bulshada Soomaaliyeed inta badan caanka ku ahayd xidigaha iyo dayaxa iyo sida ay u kulmaan sida ay waxa weeye u kala fadhiyaan in badan oo kamid ah dadku waxay ka akhristaan taa waxay soo bilaabatay bishii 9aad ee sanadkii inaga tagay 10aad in ay roobka dayrtu u yaraani doono jilaalkuna uu dheeraani doono gugax baa soo socda inuu yaraani doono bay runtii dad badan waxa weeye oo xidiga sheegyadu ay tilmaamayeen waxaan sidaas oo kale ku ogaanaa oo laga qaataa waxa weeye digniinaha xogaha dawladdu xaggeeda laga sameeyo waxaa jira wasaaradaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ee Soomaaliya ka jira iyo hay'adda Sodma waxaa jira nidaam aan ku wada shaqeyno oo digniinaha iyo xaaladahaas runtii aan uga wada shaqeyno iyo saadaasha aan uga wada shaqeyno wasaaradaha beeraha biyaha wasaaradaha deegaanka iyo cimilada isbeddelka cimilada saas oo kale waa xogaha runtii laga helo oo hadda mar horeba runtii aanu haynay in abaartani ay dhacayso waxaa sidaas oo kale jira regional xogo laga helo sida IGAD oo kale hay'adda niman la yiraahdo barnaamij la yiraahdo Swalim oo FAO ay aan garayso oo hay'adaha samafalka runtii dad ay ictimaadaan waxay dhammaan waxaasoo dhan muujinayeen laba xilliyeed roobaadkii ugu dambeeyay gugiina inuu yaraa baan horeyba markii hore la sii sadaninay uu ku xigay waxa weeye xagaagii dayrtay inay yarayd saas oo kale wacyigelinta marka taa iyada mar hore anagu soo bilownay anaga Jubbaland ahaan bishii 10aad iyo bishii 9aad baan soo bilownay in xaaladdu dayrtu ay si fiican doorin saadaashin inta helinay oo aanu kulamo samaynay oo wacyigelin samaynay seen dadka u gaarsiinaa waa tirso su'aasha seen dadka u gaarsiinaa ha oo ma helaan oo dadku say u helaan ha dadku runtii waxaan adeegsanaynaa hadda fatahaadii hore oo kale waxaan adeegsanaynaa number ragga gaaban oo dadka u direynay oo aanu kula kulmaynay waxaanu adeegsanaa dadku waxa weeye say xogtaas ay u helaan qaababka TV-yada raadiyaasha iyo FM-yada waxaan adeegsanaa social media Facebook-yada iyo YouTube-yada in badan oo kamid ah dadka isticmaalay runtii qayb weyn ka waxaa la isticmaalaa wacyigelinta bulshada oo masaajida in laga wacyigeliyo annagu waxaan sameynaa degmooyinka sida hadda Doolow iyo Luuq weligu agmar oo kale in loo sameeyo community awareness wacyigelin ah oo ay ugu diyaar garoobayaan fatahaadaha degmooyinka fog ee abaaro inta badan u saameeyeen deegaanada Jubbaland sida Ceelwaaq Afmadow Badhaadhe oo kale in marar badan loo sameeyo digniino ama badda inay ka imanayso dabaylo
ama ka imanayaan marka noocyadaasaan adeegsanaa runtii anagoo adeegsana marar qaarkood oo kale hormuud iyo samtel oo kale iyo nambarada ayagana shirkadaan adeegsanana way dhacdaa oo nu dhahno dadkii dignina ay khataraha looga digo marka dadkeenu runtii siyaalo badan bay u heleen xogta u helaanoo bulshada way isgaarsiisaa wax weeyaan aad baa u mahadsanta cabdiraxmaan dr khaliifaan rabaa inaan soo dhoweeyo khaliif xasan cilmi baaraa tahay abaaraha wax badan baad ka sheegtay wax badan baad ka qortay qodobkan odhanaya digniinaha hordhaca ah maxay yihiin qiyaasta xilliyada la isticmaalo ma kuwii awowyadeenna iyo dhaqanka ahaaba iyo mise waa wax cilmi ku salaysan dr khaliif bismillahi raxmaan raxiim wariicatoosh adiga iyo tiimka farsamada waa idin salaamaya sidaasoo kale wasiirka iyo martida kale oo barnaamijkaba qaybta ka ah aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa barnaamijkan sababtoo ah noloshanada maanta iyo waqtiga aan joogno wuu taabanayaa su-aasha haddaan dib ugu noqdo waxaa jirta saadaasha mucaasarka ah iyo saadaasha qadiimka ahayd ama saadaashii hore soomaalida hore lahaan jirtay iyo saadaasha cilmiyeysan ee hadda waayadan dambe kusoo cusboonaatay dhulka soomaalida hore waxay lahaan jirtay hab ay wax ku saadaaliso oo luuqadeeda iyo gabigeeda iyo laga helo oo ay wax ku taqaani jirtay wax ku saadaalin jirtay waana noocun cilmigaas falaga ah dad kooban oo gobol kastoo soomaaliya ka mid ahaana samayn jiray arrintaas waxayna wax ku saadaalin jireen meerayaasha xidigaha iyo bisha iyo falgalkooda iyo isla degooda iyo isla joogoodaas ba waxay kasoo dhex saari jireen hab ay ku jaangooyin karaan cimilada iyo sanada da'i doonto iyo inta ay leeg tahay sida ay u eg tahay si maana waxaad moodaa dadkii noocaas ahaa oo soomaalida ku dhex jiri jiray waa loo hoggaansami jiray waqti xaadirkan marka loo fiiriyo waa loo hoggaansami jiray oo dadka cilmigaas yaqaanay markay yidhaahdaan sanada soo socoto ma fiicno ama ay meel ka guuraan dad badan u hoggaansami jiray waayadan dambe taas waxaad moodaa shaki diini ah la geliyey ayadoon shaki cilmi ah la gelinin marka waxaa la yidhi waa nooc ka mid ah dee falaqaynmaha maaragtay laga fiican yahay diin ahaan dadkii noocaas wax u saadaalin jirayna waa laga reebay bulshada waxaana lagu adkaystay in maaragtay roobka iyo sha'nigiisa iyo di'itaankiisa iyo sano inay abaar tahay inay calaf lahaato amar ilaahay wax ku xiran ay tahay waxaa la kala dhumiyey aqoon-yahankii dhaqanka ahaa oo noocaas dadka wax ugu saadaalin jiray hadday wax khaldan jireen iyadoonan laga sixin wixii wanaagsanaa iyo wixii khaldanaa oo ay lahaayeenba waa la dhumiyey dadkaas maadaama ayaga dowrkooda meesha uu ka baxay dowr labaadaa soo haray oo sidoo hadda wasiirka sheegayeyna aanan dadka wada anficin dadkana wada gaarin dhegna aan jalaq loo siinin waa saadaalimaha sayniska ah oo cilmiga ah oo hay-ado waaweyn iyo wasaarado iyo dowlado waaweyn oo adduunka aad loo falanqeeyo sidoo hadda wasiirka sheegaya oo kale bisha tobnaad horraankeeda dabayaaqada September yaa waxaan arkay beejka rasmiga ah ee midowga Afrika ay leeyihiin bay kusoo baahiyeen saadaasha abaaraha iyo qaleylka bariga Afrika ka dhici doono marka hay-adaha qaramada midoobay ay leedahay iyo dowladahaba waxay leeyihiin iyo macaahidda cilmi baarista iyo saadaasha ka shaqeyso labadaas saddexdaas group oo la isku darayba waxay leeyihiin dadka qoraayaasha ah iyo cilmi baarayaasha madax banaanba hab lagu saadaaliyaa hadda la helay habkan marka wariicatoosh waxaan rabaa inaan u sheego bulshada Soomaaliyeed hab ay laqeen oo wali ka degay ma aha oo way inkiraan oo uma hoggaansamaan waana meesha ay aafo badan nooga dhacdo oo markay abaar dhacaysana aan ugu naafowno markii fatahaad ay dhacaysana aan ugu naafowno way marka cilmigaas cilmi wali bulshada ay aqbashay maaha saadaalintaas saadaalin wali bulshada ay aqbashay maaha inta raadiyaha iyo maqli karto iyo mataqaanaa Facebook iyo telefishin waa inta magaalooyinka ku dhaqan dadkaasna dadkii marka horeba halista badan ugu jiray maahan abaartii fatahaada dadka reer miyiga ahaa oo rasmiga ahaana caqiidadan sanadka soo socda abaar uu noqonaya wayba ku adag tahayba marka waxaan ku gabagabayn lahaa nidaamkan dambe oo mucaasarka ahna lama qaadanin kii hore qadiimka ahaana waa laga soo tagay sidaasaa waxaan ku noqonnay baylaha in fatahaad walba oo dhacdana aan dhaqaale ahaan iyo dunya ahaan u naafowno abaar walba oo dhacdana aan u naafowno sirkalkaasna wuxuu dhici karaa sida hadda aan hayo 2010 qoraaladii ka soo bilowday iyo xogihii aan aruurinayay 2010 iyo hadda inta laga soo bilaabo inta u dhaxaysana
shanti sanaba sirkalkaas dabinkaas maraan ku dhacnaa maray haataba ama dabinka fatahaadaan ku dhici doonaa ama dabinka abaarahan ku dhici doonaa السلام عليكم وما حسنت دكتور خليف هذا ما حسنت وكوسو نقون دونا هيغا فوغانين ان waxaa isweydiin karaa marka haddiiba fariintan uu qofka helo xagee loo mariya taas iidana waa su'aal meesha ku jirta axmed cabdi cusmaan oo afgooy jooga kusoo dhawaaw su'aashaas عطف وما سنت هاي سيدو كلو سلامة يا وزير عبد الرحمن سيدو كلو سلامة يا دكتور خليف يا دمان خيارتك كلو برنامج كلا سعتو دغيسنيسو سؤاشا دان كسو دواادو حقيقة واحد مودا مركي سيدو دكتورك او شيغي خليف با in maxaa loo yaqaana dadka magaalooyinka joogo ama heli kara isticmaalka social media awoodo ama fariimaha wasaaradaha ay soo diraan ama hay'adaha maxaa loo yaqaana caalamiga ahba dadkaas waxaa moodaa inta badan digniinaha way helaan ama way dhageystaan ama doodahan oo kale ay dhageystaan laakiin dadka reer miyiga ah ama beeraleyda ah ee inta badan aan telefoonada smartiga haysan internetka la socon idaacadahan dhageysan waxaad moodaa inta badan markii yani ama abaarta aad u cuslaato ama fatahaad u cuslaato laga yaabaa fariimo kooban oo hormuud ah oo xilligaasna laga yaabaa fariimaha dadka loo diraayo inuu culayskii musiibada ay jirto marka waxaan qabaa marka weli gaabis ayaa ka jira walow maxaa loo yaqaanaa waxun ay jiraan haddana sidii la rabay uma shaqeeyaan fariimahaasi waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan telefoonada dadka isticmaalaan ee message-ka kusoo dhici karo ama dhageyska loo saari karo qofka lagu caayo inta badan fariimahaasi si xool ah shirkadaha isgaarsiinta loogama faa'iideysto waxa kaliya dadka fariinta gaarsiin karana oo magaalo iyo miyiba si siman uga shaqeeyo waa shirkadaha telefoonka weeyaan wixii kale oo magaalada jooga inta badan abaarta iyo fatahaadu si toos ah uma saameyso marka waxaan isleeyahay midaas arrinta kale oo ka muhiimsan aan isleeyahay waa in lagu nuuxnuuxsado u baahan haddii xitaa abaaraha la sheego ama fatahaadaha la sheego digniintooda waxaa kasii muhiimsan walow muhiim tahay in loo diyaar garoobo in loo diyaar garoobo waxaad moodaa arrintaas inay gaabis ka jiraan culaysyo jir awgood dadku marka haddii xitaa fariinta loo sheego laakiin diyaar garow uusan jirin dowlad ahaan iyo ka shacab ahaanba in wixii laga digayay ay dadku ay ku dhacaan khasaarihiina intiisii in la midba uu sii ahaanayo marka culayskaasna waa jiraa axmed aad baa u mahadsantahay waa kuu soo noqon doonaa waxaan jeclahay inaan dadka xasuusiyo lambarka gaaban inay noogu soo diri karaan waxa weeyaan 2 golisna waad ka soo diri kartaa hormuudna waad ka soo diri kartaa fariinta gaaban waana lacag la'aan sidoo kale whatsapp numberka noogu qoran shaashada eed arkaysaan ayaad cod noogu reebi kartaan mawduuca aan ka hadlayno ee aan rabno inaan wax badan ka ogaanana waxa weeyaan in muwaadiniinta Soomaalida ay helaan fariimaha digniinaha ah ee ka digaya khataraha abaaraha iyo daadadka doodaan weli bartanka kaga jirnaa wasiirka gargaarka iyo arrimaha bini'aadanimada ila fadhiya ee dowlad goboleedka Jubbaland in wasiir su'aal kale oo waxaa jirta ku oranaysa abaarta marka la galo ama fatahaaduhu ay dhacan ee marka la galo maxaa muujiya oo astaan ah oo aad dadka la wadaagtaan waa maasantahay cabdirasaaq runtii intaanan su-aashaadaasi aanan jawaabteeda u gelin waan ku raacsanahay tiimka dr axmed iyo injineer axmed iyo dr khaliif sida ay sheegeen saadaasha iyo digniinaha ama traditionalka lagu helayo ee dadkii xidig sheegyada ama nidaamkaas isticmaali jiray qadiimka ahayd ee Soomaalidu ay ku saadaalin jirtay ama midan casriga ah Soomaalidu inay runtii aqbasho way adag tahay qaybo badanna waxa laga yaabaa hadii aqbalayn xateynaysa ahayd inaysan u gaadhin baa dhici karta tusaalayaasha aan ugu soo joogay waxaa ka mid ah runtii 2023kii ilniinadii iyo fatahaadii xoog badnayd markii ay digniinaheedu soo baxeen oo bilownay dadka inaanu nambaro u diro oo kala hadalo fariin ugu diro gaarsiino oo u sheegno wacyigelin loo sameeyo bulshada qaybo badan oo ka mid ah bulshadu runtii weliba dadka webiga agtigan oo kale way aad bay runtii waxa weeye dadku arrintaasi bay uga hor imanay u lahaayeen ma alla xagiisa ka timaadeen ma say ku dhici kartaa mininka laakiin 2 bilood 3 bilood kadib dadkii sidaas runtii lahaaba waxay arkeen wixii oo dhab ah marka runtii waa culays jira oo in badan oo ka mid ah bulshada laga yaabo inaysan waxa weeye sidii dula falgelin oo una baahan in lagu celceliyo si taas aan uga hortagnaa anagu ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad Jubbaland qaadanay inaanu runtii maadaama webigu inta badan khatar badan nagu hayo fatahaadiisu inaan community-ga webiga agaagisa degan mar walba inaan wacyigelin u sameyno tiimam isugu xidhno oo aan waxa weeye dhahan webiga marka dayrtu maalan waxa weeye hadda oo May markay dhexdeeda la marayo kale
وإنت بدل حديث فتاة وتمادو كله وهيلان كبيو إثيوبيا كسر مذا إن لا ضدك حوي هلو ديار جروب أو حوي هالسكيل عليه مركز رنتي وبرنامج وباهن ددال بدن يو كفالجريد يسكتشي إن هوشا يدا الله حوي حلاقة ضدك الصومالية لو براروتشيو حاجة دينية حاجة كلا الأمور البيسيس دينين إنه حوي اللي سوافتشيو سؤال هذه عن أصول لابتوب abaarta marka la galo fatahaadaha maxaa muujiyo astaanaha oo dadka la wadaagtaan tusaalahaan hadda abaartiyaa dhexda looga jiraa waxaa runtii abaartan hadda lagu jiro kale waa wax runtii la arki karo oo muuqda oo dadkii in xoolihii biyaraan imanayso oo dadkii ceelasha iyo meelihii biyaha isugu imanayaan inay dadkii waxa weeye biyihii qabarayskoodu kor u kacahayo meelo badan in biyihii waxa weeye dhaamamkiiba annaga hadda waxaan soo bilownay bishii tobnaad markaa la dayrtiinaysan waxa weeye runtii saadaasheeda aysan yar tahay inuu dii doonto deegaamada Jubbaland qayb badan ka mid iska dhig gobolka Gedo kala iska diinba inaanu dadkii ku wacyigelin oo dhan waxa weeye abaar baa soo socotay biyaha meelaha waraha oo kale dadku isticmaalaan hal kaydsan ceelasha in dib loogu sameeyo dayactir loogu sameeyo loo diyaar garoobo marka waxyaalaha la arkay waxay ka mid tahay dadku u muuqda abaartu inay waxa weeye jirto oo xaalad ay muuqato biyihii iyo yaraanaya dadkii oo isku soo daaqi oo yaraado oo dadkii badan ka mid ah deegaamada waxay leeyihiin xoolihii daaq bay leeyihiin isu gurgur baa imanaya oo degmooyin kooban bay isugu imanayaan oo roobab u yara ka da'een degmooyinna kama badiinba marka markii la ogaado inaan ceel waaq iyo afmadow iyo beled xaawo iyo baar dheer inaysan roobe ka diinba that means inay xaalad abaar oo khatar imanayso mar walba noo sii muuqatay bay ahayd fatahaadda saas oo kale webigu markii luuq uu kasoo door uu kasoo galo isku soo daro luuq markuu soo gaaro la ogaanaya inuu fatahaaddu meesha marayso iyo numberka uu webigu meesha waxa weeye marayo taana waa xaalad tuusinaysa fatahaad inay khatar jirto dadka markii in la yiraahdo war diyaar garooba ka durka waxa weeye meelaha korkore meelaha asla seed garaynay ba asal calaamadinay baa jirtay annagu waxa weeye degmooyinka iyo wasaaradda iyo waxa weeye hay'adaha kala dawladdu iyo hay'adaha amnigu meelaha baar dheer meelaha looga badbaadi karo luuq looga badbaadi karo kismaayo meelaha webigu waxa fatahaad ku keeni karo iyo meelaha kale marka noocyadaas waxa weeye inta badan lagu ogaada waa gartay waxaan rabaa afgooye inaan aado axmed cabdi cismaan isla su-aashaasaan rabaa inaan si kale u dhigo abaarta marka la galo sida haddaba jirta maxaa jira wax muujiyo astaana oo dadka lala wadaago gaar ahaan hadda beeralayda aad ku dhex jirto وما صرت عطوش هرت حقيقة وما باهنو محل يقانا مر هدي أبارتي أي بلابطو إلى سبحانه قادر كأمدي ساكسو جارها نجا قبوتشيو واحد محل يقانا شيء سما باهنو كلي وحب باهن تسيد لغة وش يصلها يسيد محل يقانا حولها لوم محل يقانا لوب بحلها تكون الاسكو جرمل لهم بامحيم ولما ميرهن بيرهن أو أنت بدن أمانهين أما دول نمو سيسحيس أجارين تذكر واحد مدة إني آد بيره ويهين أي ضيعيهين wax gurmadana loo fidi karin cid dadku aysan ka warheynin culayskoodana ay tahay wax qarsadeen walo inta badan dadku iska soo barakacaan oo magaalooyinka soo galaan kadibna barakacyaal ku noqdaan qaarkoodna ay adagta inay dib ugu laabtaan beerihii iyo noloshii miyiga mar haddii magaalooyinka ay ku heleen baxnaano yar iyo nolol yar oo maxaa loo yaqaan markaas u muuqato badbaado marka arrintaas marka abaarta haddii mar dhacdo wax sheegisa iyo wax uma baahno kaliya waa qof kastii cagaha ku baxso qof kastii noloshaada xoolaha isaga badbaadi karto ku badbaadi dadku inta badan xoolihii ku mitidaan marka xoolaha gacantooda ka baxaana noloshoodii la soo cararaan oo magaalo iyo meesha markaas ceersal la soo aadaan wahgag aad baa u mahadsantihiin waxaan idin xasuusinayaa lambarka gaaban inaad fariin noogu reebi kartaan golis haddaad haysato iyo haddaad hormoodba haysato sidoo kale lambarka whatsappka ka muuqda shaashadda ayaad cod ku reebi kartaa waxaan jeclahay inaan dadka fursad siiyaan rabaa dhowr qof toos ugu jirta khadka oo aan jeclahay inaan u baaqo oo mikrofoonka qaataan axmed cusmaan soo dhawow axmed cusmaan haddii aad su'aal qabto ood martida su'aal weydiinaysa iyo haddaad fikir ku daraysaba السلام عليكم مالي مقلاه si fiican lagu maqlaa ku soco بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رمضان وناكسن dhammaan martida barnaamijka wasiirka iyo martida kale ee barnaamijka ku jirta aniga su'aal ma qabo laakiin waxaan rabaa inaan waxyar aragti ka dhiibto habka fariimaha helitaanka dadku inay fariimaha helaan in kale sida ognahayba fariimaha waxaa lagu baahiyaa laba qaaba ugu caansan fariin qoraal
iyo maxay tahay in idaacadaha laga sii daayo waxaa soo saddexeeya in baraha bulshada lagu faafiyo dadka magaalooyinka ku nool ama urban areaska inta badan fariimaha way helaan laakiin dadka ku nool meelaha baadiyaha rural areaska ma helaan fariimaha ama kuwa yara hela sababa jira ogo tusaale ahaan baadiyaha waxaa aad u ciriiri u ah isgaarsiinta ciriiri waayo meelaha baadiyaha sidoo kale dadku waxaa laga yaabaa in telefoonada ka dansan yihiin oo maaragtay inaysan dadka jaajar haysana macquul ah oo korontada ay ciriiri ku tahay waxyaabaha kaloo keenaya dadka baadiyaha jooga caqabadaha ku ah inay fariimaha helaan waxaa ka mid ah in literacyga uu aad ciriiri u yahay oo dadku aysan aad qoraal aysan akhrin karin maadaama dadku baadiye ay joogaan oo aysan wax fahamsanayn akhriskii iyo maaragtay sidoo kaleeto waxaa dhib ku ah in mararka qaarkood fariimaha ay ku qoran yihiin aa dhici karta waxyaaba scientific ah oo fariimaha ay scientific yihiin dadka qaarkood dialectiga ay isticmaalaan ama dadka maxay tahay inaysan ugu dhacin sida gobolada Bay iyo Bakool oo kale inkastoo dowladda arrinka improvement ay ku sameysay baadiyaha caqabadaha kale oo ka jira waxaa ka mid ah inaysan wixii aysan ka dhadhacsanin sida hadda wasiirku uu sheegay oo kale oo aysan aaminsanayn in maaragtay waxaan wax sax ay yihiin sidoo kale mararka qaar waxaa dhici karta genderka xaggiisa marka laga hadlayo dumarka iyo ragga inaysan fariimaha isku sii u helaynin arrinkaas ayada lafteeda caqabad baadiyaha ka jirta waye marmarka qaarkood waxaa laga yaabaa in fariimaha dadku ay helayaan oo kaleeto oo inconsistency ka jiro sababtoo ah mararka qaar waxaa laga yaabaa wasaaradda ama sodmo oo kale inay fariimo dirto hay-adahan qaramada midoobay oo kale inay fariimo diraan sida WFP iyo FAO oo kale ayagana wixii xoogaa marka dadka in ay fariimihii aysan mid ahayn suuragal ah mararka qaar inkastoo ay rabtaa improvement mararka waayihii dambe ay ka jirtay halkaas waxaa loo baahan yahay coordination gapska in laga hagaajiyo dadkana sidoo kaleeto caqabadaha ay wajahaan waxaa ka mid baadiyaha misinformation badanaa jira oo ka jira dhinaca baadiyaha in wixii dadka qaar ay tashwiish ku furayaan dadkii taasoo dadkii aysan mar too late ay tahay oo wixii daaheen ay maaragtay action qaadayaan marka intaasaan kusoo koobi lahaa aniga waqtigan dhaqaaleynaya aad u mahadsantiin Atoosh iyo bahda kale ee barnaamijka daadihinaysa waad mahadsantahay hayga fogaanin runtii wax badan baad kusoo kordhisay barnaamijka Dr. Khalifa aan rabaa inaan su'aal weydiiyo Dr. Khalifa dabcan hadda bartankaa looga jira abaarihii maxaad isleedahay waa la isticmaali karaa aalad ahaan dadkase qaabkii ku heli karaan Atoosh waa mahadsan tahay mar kale adii martida wasiirka iyo asxaabta kale oo meesha ku jirto waxaan isleeyahay habka ugu dhow waa shirkadaha isgaarsiinta wicitaankooda oo la dhex maro anoo waqtiga ilaalinaya saasaan uga jawaabi lahaa meesha ugu dhow waa taas maxaa yeelay waxaan kale oo raadiyaha leh oo social mediaha leh maba haystaanba dadka maanta ugu nugul oo dhibta ugu badan abaarta ay ku dhacayso haddayna heli lahaayeenna dantaba uma saamaxaysaba nin abaaraysan shaashad telefoon inuusan furin bay u badan tahay laakiin qofkii uu dhihi lahaa warbooyad ii shub iyo kii uu dhihi lahaa halihii maxaa fariistay maxaa socda haddii wicitaanka fariinta ay ku dhex jirto waxaan isleeyahay meesha ugu dhow uguna saamaynta badan wicitaanka shirkadaha waaweyn ee waddanka laga isticmaalo inay tahay Catoosho Khalifa misleeda haddii dadkan loo tago tusaale ahaan awdhiigle baadiyaheeda qofka jooga haddii loo tago ayagoo xaafadaha loogu tago fariimaha la gaarsiiyo si waadix ah oo qofku war istaagi karo waxbay ka tari kartaa waa runtaa waxbay tari kartaa oo weliba taas wacyigelin dheeraad iyo waxay wadan kartaa cilmiyo iyo farsamooyin iyo calaamado laakiin markii la rabo dad in la abaabulo waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay waqti kuwaan aad abaabulaysaa waqti kaaga baahan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa logistic inay kaaga baahdaan iyo hab lagu abaabulo waxaa laga yaabaa qalab ay isticmaalaan iyo warqado ay calaamado ku qoran yihiin iyo erayo iyo halkudhig inay kaaga baahdaan marka waxaan isleeyahay wacyigelinta telefoonka waa midda ugu gaaban oo haddii caawa 6 saac la sii daayo codadkaas beri subax wax ku dhow 10 milyan oo qof ay maqli karaan marka kuwa kale farsamada galaysaana waqtiga halista oo lagu jiro sii dibdhigi kara macnaha ama halistana sii badin karo saasaan oran lahaa وهجاك أدنى ما ثنتا وحن حسوسنا يا تدك هذا النقص صبيري إن التوس ودقي سنة يندود إن برارو أو أبارها نواه اللي كرناه وواحد لينه تدكم مهلا فريمها دقنينها أبارها يدادتك يقطرها صوص الله
aragtidaadaad soo dhiiban kartaa golis iyo hormuudba 280 weeyaan lambarka gaaban waa lacag la'aan whatsapp nambarka shaashada ku qoran ee 25 eber 66 qoraalna waad ku reebi kartaa whatsappka cod ahaanna waad noogu reebi kartaa waxaan jeclahay axmed cabdi cusmaan oo afgooy jooga axmed oo su'aal kale waxay ku oranaysaa aaladaha dadka ay isticmaalayaan tusaalehaan hadda markaad beeriha joogto reer miyiga marka laga soo tago beeraleyda kee u fiican ma telefoon in fariin loogu reebaa ma whatsapp in loo reebaa ma in inta loo yimaado codbaahiye mikrofoono la isticmaalaa ma raadiyaasha inay dhegaystaan baa aaladee la isticmaali karaa عطش waa mahadsan tahay waa su'aal muhiim weeyaan waxa ugu cost effective na ah dhaqaalahaan suurtagal ah dadkuna ay wada heli karaan waa in maxaa loo yaqaan telefoonkan caadiga ah systemka hormuud la dhaxmaro laba qaabna la isku daro waa maray in message loo qoro sida kuwa message-ka akhri karo oo wax akhri karan ay u arkaan iyo in marka maxaa loo yaqaan sida hadda hormuud ay sameeyso ama shirkadaha isgaarsiinta guud ahaan ay sameeyaan in labada qof markay iswacayaan oo qofka telefoonka dhagta ku hayana fursada sirka oo looga faa'iideysto si kaniiska ah oo qofka loogu sheego wixii markaas emergency ah markaas uguna fudud cost ahaan la awoodi karaa ayaa dadkan ay ku wada gaari kartaa fariinta ilaa xad aad baa u mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan sagal u baaqo oo dhegaysta aad toosna khadka ugu jirta sagal dumarka ma isleedahay isla fariimahan iyaga way heli karaan sababtoo waxaa jira hooyooyin fara badan oo hadda abaartii ay saamaysay lana arkayo waa mahadsantahay catooshow wasiirka iyo marti sharafta meesha saaran baa salaamaya iyo akhyaarta dhinacaas iyo nagala socota facebooka haweenka iyo dabcan guud ahaanba dadka danyarta ah oo laga yaabo inay ku sugan yihiin misaalada usoo qaadan oo kale beeraleyda iyo dadkaas abaaruhu ay saameeyeen iyo dadka meelahaas joogoo kale waxaa dhihi karnaa inta badan fariimaha waa loo gudbiyaa laakiin sida caadiga waxaa macquul ah qof xoolihii ay ka farfadhiisanayaan abaar darteeda hawl ku jiro beerihiisii kasoo barakacay waxaa laga yaabaa inuu sidii la rabay u helin fariinta markaas ayada ah marka waxaan dhihi karaa waxay u baahan tahay in dadaal dheeri lagu bixiyo juhdiyo lagu bixiyo waxaa jirtoo kale tusaale in dadka aysan isku lahjad ku hadlin sida tusaaladkeena mashinguriga oo kale beesheena jarweynahoo kale dadka af soomaali ahaan in oo luuqad fasiixa lagu gudbiyey waa laga yaabaa fariinta sida hormuud haddii la dhex maro hadda sida uu sheegayay walaalkii ugu horreeyey dadka marka fariintaas loo gudbiyo waxaa laga yaabaa inaysanba aysan sii siinin ba priority aysan siinin ama aysan inta badan focus ka saarin ay keeni karta lahjada lagu hadlayo marka waxaan dhihi lahaa in la xoojiyo oo kale tala ahaan ku darsan lahaa in la xoojiyo waxyaabaha lagu hadlayo markaas barta iyadoo fm-yadoo kaleete hadda meelo badan oo gaarayaan baa jirto meelahaas kale oo la dhex mari karo qof walba wixii uu fahmayo sida uu u fahmayo hadalka in qof walba halkaa loo sii marin karo oo aan keliya lagu daynin aad baad u mahadsanta waxaan jeclahay wasiirka gargaarka jubbaland aan nala fadhiyo maantana ka soo noqday dhulkan abaaraha ay ku habsadeen wasiir cabdiraxmaan dadku sidii ku ogaadaan inay abaar jirto ama fatahaad inuu jiro bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay catoor runtii dadku hadda inay abaar jirto ogaansho u baahanoo waa bannaanka iyo taallaaba nin walba oo qof walba maanta soomaaliya jooga meeluu ka joogaba runtii gurigiisay ugu tagtay oo kii beerelidaa bay saamaysay oo kii xorolida bay saamaysay oo magaaladii bay saamaysay oo dadku maanta way arkaan oo midaas waxa weeye wax u baahan hadda in loogeysiiyo waxa weeye ma aha u baahan ma aha runtii annagu booqashada haddaan dool maanta iyo gobolka gedo aan ku joognay maalmahan oo degmooyinka ku mareynay gobolka gedo iyo gobolada degmooyinka gobolka jubbada hoose maalmihii wiilka ugu dambeeyey waxay ahayd runtii diyaargarowga iyo ka jawaabidda abaarta dadka iyaga haysata si wax uga qaban lahayd hadda maanta ma taagna digniinsi loo gaarsiiya digniintu dadku hadda wayba haysaa oo wayba dhexda kaga jiraanba laakiin waxaan dhihi lahaa inta aan taas aanan wax ka dhihin runtii dadkeenu inay helaan digniinta oo ay helaan waxay u baahan tahay tallaabooyin badan oo inta la sheegay dadkan aan ku waafaqsanahay meelaha ugu muhiimsan ee la adeegsan karo shirkadaha isgaarsiinta iyo fariimahooda mobilada dadka ugu soo dhacayo iyo tu loogu diray waa wax muhiima runtii horena anagu aanu tijaabinay shirkadda hormuudna runtii anuga mahad celinay hore anuga wada shaqaynay hadday fatahaadda noqoto iyo hadday abaarta noqoto waxaa u baahan runtii iyadana saas oo kale in la xoojiyo dowrka culimada iyo dadka liidka ah oo in la soxo fahamka ah khataraha ka digidoodu
in laga diga khatar soo socotaay inaysan wax diinta xaggeeda iyo qeybka la xidhiidha oo khatar inaysan ahayn oo yani dhibaato inaysan ahayn dadka in laga soxo qofka inaad tidhaahdaba walaal waxaa muuqatay inay khatar soo socoto bishan iyo bisha dambe waxaa la saadaalinayaa inuu webigu fatihi doono meeshan ka guur khatar bay ku keenaysaa ma ilaahay xaggii baa nooga tiid bale dad baa qaanay dhahaan baa laga yaabaa marka in culummadu fahamka in asxaayi waa bointi runtii muhiima oo loo baahan yahay oo dadaal lagu bixiyo annaguna hadda aan bilownay ka jubbaland ahaan qodobka isaga inaynu adeegsano oo hadda guddiyada abaaraha ee hadda heer degma ka samaynayna waxaa ku jira mar walba culummo oo dadka wacdinhaya oo inay u diyaar garoobaan khatarahan ama fatahaad ha noqoto ama abaar ha noqoto oo ay qaataan digniinaha loo sheegaya ka dowlad ahaan runtii in la mideeyo dadaalada ka digitaanka khataraha ana waa bointi muhiima runtii waxa weeye haddana socda horeyna aanu wadnay waxaa hadda dadaala socda oo isteedyada ka socda dowladda federaalku waxay ahayd sodma maamushaa heer la yidhaahdo sio ee la yidhaahdo oo waxa weeye national oo khataraha iyo inay ka digto oo weather forecast samaysa in la daadajiyo oo state kasta laga sameeyo qorshaheedaan wada inaga jubbaland qorshaheeda waan wadnaa hadda dhismihii mardhow waxa weye uu bilaabanayaa steedin kalena uu ka socda taa waxaa la rabaa waxa weeye qorshaheedu yahay in la mideeyo digniinaha waddanka ka soo baxaya dhammaan waxa weeye heer federal heer stateba hal digniina oo saxa oo xogtii la helaa in dadka loo daadajiyo oo bointi u baahan runtii gaabna uu ka jiro in la buuxiyana u baahan marka dadku si u ogaadaan runtii waxa weeye arrintaa iyada waxay baahantay dadaal badan oo lagu midaysan yahay oo laga wada qayb qaato oo masaajida laga wacyigeliyo oo tiifiyada laga hadlo oo dadka loo tago waxaa kaloo ugu muhiimsan dadka in loo tago annagu hadda waxaanu la kulannay meelo fara badan oo dadku runtii tuulo la yidhaahdo diif dad aan kula kulanay odayaal ah oo dad waaweyna waxay qiyaasayeen bixinayeen runtii saalaasha abaartii daba dheer calaamadeeda hadda inay muuqdaan sida dadku aysan calafkii aysan xoolii u haysanin biyihii ay u yaraanayaan dadku ay isugu soo gurguurayaan oo dadka meesha waxaanu ku aragnay hadda doobley iyo afmadow iyo waxaa imanaya dad ka soo qaxay sood wasta ka imanaya oo diinsoor ka yimid oo iska socda oo magaalooyinkaas waxa weeye soo hiigsanaya qaxootigiina laga xidhay oo kenya aan geli karin markii la yidhahdo xaggan kenya loo gudbo marka runtii waxa weeye dadku waa wax hadda u muuqato nin walba kuu sheegayo markaan la kulanno on dhaaro bal warrama ay leeyihiin niba khatar baa noo muuqato kay leeyihin qof walba dadkii ninkii baadiyaha ee ariga watay ama lo-da watay markaad weydiiso xaaladaada ka warran wallahi xaaladdu ma qurux badnay buu ku leeyahay maanta marka cabsi badan baa jirta cabsi badan baa marka runtii u baahan in waxa weeye lagu diyo qodobka runtii kale ee walaalkaan u marinaya inuu ahaa injineer khaliifna uu ka hadlay ah khatartii way muuqataa waana aragnay see in laga diyaar garoobaa muhim waa roolka runtii dowladdu inay qaadato heer federaal heer state ah oo bulshada lagu hogaamiyo si looga waxa weeye khataraha looga hortago hadda abaartan oo kale annagu ka dowlad ahaan jubbaland waxaan mar hore soo bilownay runtii in markii gugii hore uu yaraaday deyrtiina ay dhex marayso in wasaaraduhu ay bilaabaan isku yani barnaamij resiliency oo isku tashi ceelal badan in la qodo dhaaman badan in la qodo in la sameeyo webiga meelo badan in lagu kala biyahayseen waxa laga faa'iidaysan karo beeraha in loo sameeyo dadku inay wax beeran karaan xoolaha in calaf loo sameeyo socdo qorshe oo calaf loo arrinta calafka wasiir halka igu hay axmed cabdi cusmaan calaf baa ka shaqaysaa beeraleyda dhinac ka tahay afgooda joogtaa isla su-aashaasna waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo dadka sidii ku ogaadeen inay abaar jirto ama fatahaad jirto fatahaad baan tusaale usoo qaadanay iyo afgooy iyo beeraleyda cabdulf waa mahadsan tahay dadka intooda badan ee dhirgaradka ah ee beeraha ka shaqeeya ama reer miyiga ahba intooda badan oo fariimaha haddaan dhinac ka sheekeynaynay ayay helaan iyo dadka qaarna waa dadka doctor khaliif uu ka sheegayay oo cilmiga xidigiska iyo xidigaha iyo waxyaalahaasay si traditional wax loogu fiiri jiray marka waxaa isleeyahay khataraha ama inta badan digniinaha waa la helaa walow dadka boqolkiiba boqol aysan wada gaarin loona baahaya in intaas looga sii dhowaado laakiin waxaa muhiimka rabaa inaan ku nuucsado anuu ka faa'iidaysanayo wasiirka dooda nagula jira iyo khubarada kaleba waxaa asal ah waxaa hadda la dareemayaa inay run tahay isbeddelka cimilada abaaruhuna ay soo laalaabteen fatahaaduna ay soo laalaabteen moodana inay isku keedhiidhiibayaan waxaan laga rabaa marka sida marka bulshadeena ay tahay wax ku dhow boqolkiiba 60-70 dad reer miyi ah xoolaha nool ku tiirsan noloshooda labada shayna u nugul yihiin marna fatahaadu aad ugu nugul yihiin dhibaato weyn u gaarsiisaa abaartuna sidoo kale waxaad moodaa inay fatahaada kasii khatar badan tahayba marka waxaa muhiim ah in maxaa loo yaqaan isbeddelkaas cimilada maadaama uu jiro inaan bedelno weygii aan u nooleen ama habnololeedkeenii hore oo ku tiirsanaa daaqii xorka ahaa iyo waxyaalihii inta badan aan juhdiga iyo jihaadka badan la gelinaynin tusaale ahaan in calafka la diyaariyo tusaale ahaan bishii hore waxaan joogay kismaayaan tegey arrimo tababar wasaaradda xanaanada xoolaha ee kismaayo ama jubbaland
ayaan la shaqaynayay meelihan tababarka u tagay waxaa ka mid ahaa oo dadka ku tababarayeen meel rayontoy ama xaggaasi goobeyn waxaa fili lahayd in webiga Jubba uu buuxay oo biyuhu ay badda ku shumaayeen meel 30 kilomitir u jirta eridaasna ay ku dhimanayaan xoolaha oo abaarta ay saameysay dadka waxay moodaa marka walow dadaal uu ka jiro yontoy beero badan oo calafka lagu beeray ay jiraan oo farsamo dhawaan gal ah haddana waxaan moodaa sidii la rabay uma shaqaynin oo dadka reer miyiga ahaa lama barin ama kuma baraarugsano in xoolaha gacanta in laga quudo inay muhiim tahay in calafka la diyaarsado inay muhiim tahay in arrimahaas marka waxaan wasiirkan uu ka faa'iideysanayo arrintaas waxaan rabaa juhdiga lagu bixinayo in abaarta laga daba tago iyo gurmadka iyo wacyigelinta in si joogto ah loo shaqeeyo dadkana la baro inay isbedel jiro isbedelkaasna lagu qasban yahay si loo noolaado loo sarfaaf gareeyo in la xil hore laga diyaar garoobo noloshii reer miyiga ahayd oo maxaa loo yaqaanaa aan ku dhisnayn maxaa loo yaqaanaa iska socodkana uu meesha ka baxo qofku diyaarsado marba tirada xoolaha uu leeyahay calafka uu sii lahaa xilliga abaarta waxaa jiro xilliga roobka jiro raqiisa su'aalaha badarka oo kale qofku inta badan inuu gadana laga yaabaa balka uu keysan calaf uu tacban laakiin abaarta markii la gaaro ku baraarugo arrimaha calafka waan ka warrami doonaa sagal baa su'aal qabta oo ah dhageysta toos khadka ugu jirta sagal soo dhawaaw su'aashaada waayaad sagal waa kuu soo noqon doonaa waxaan jeclahay su'aal kale inaan wasiirka hordhigo dad la takooraa jira gaar ahaan dadka inta badan ay Soomaalida aaminsanta in laga tiro badan yahay oo la hebsooco ama si un loo takooro bulshada laga takooro reer guraaga gaar ahaan kuwa tuulooyinka ku nool ee aan helin wararka digniinaha xagee ka heli karaan Cabdiraxmaan runtii khatarahan abaarta iyo fatahaadda waa mid wada saameynaysa dadka waxaan u maleynayaa dad la takooro oo si gaar ah khatarta ugu dhacda ma jiro laakiin waxaan u fahmayaa macnaheedu waxay tahay dadka meelaha fogfog degan ama dadka tabarta daran ama dadka aan waxa weeye digniinuhu inay ama idaacad ama raadiyo haysanin ama moobile haysaninba oo dadka nugul ah dadka runtii waxay ka ogaani karaan oo ugu muhiimsan in lala falgalo oo si cadaalad hoosiman dadka waxa weeye loo gaarsiiyo adeegga loo wada gaarsiiyo dadka baadiyaha degan ee tuulooyinka degan baa khataraha ugu nugul runtii waxa weeye hadda abaarta oo kale fatahaadana dadka ugu nugul waa dadka annaga hadda Jubbaland oo kale ama webiyada nada Shabeelle ama Jubbo kale webiyaashu dadka agdegan webiyaasha oo kale waa dadka ugu nugul waana dadka runtii Soomaalida markii la yiraahdo ugu nugul weeyaan oo dad ama beera ku xaweeyay ama guriyo jilicsan oo aan u arkaysin badan u sameyn karin fatahaadda aan lahayn dadka marka in la gaarsiiyo oo fariimuhu ay gaaraan ama loo sameeyo wacyigelin ay ku ogaani karaan annagu runtii hadda webiga jinkiisa degmada Kismaayo la degmada Jamaame luuq ilaa Doorow ilaa degmooyin dadkaas oo kale waxaan u sameynay in la isugu xiro community ahaan team la isugu xiro loo sameeyo qof chairman loo sameeyo telefono yar la siiyo oo fariimuhu ugu soo dhici karto isgaarsiin wacyigelin duulada intii tuulada gabadha la yiraahdo xilligaas iyada ah runtii dadku way la qabatimeen oo maalin hadda ma dhaxas booqday la yiraahdo Barson Guni nin odaya i weydiiyo runtii ugu yiri fatahaadii kadib ay ahayd taadii 2023 bilowgeedii markii gugii dambe bay ahayd buu ugu yiri wasiir beertaan rabaa ka waran salaashu ma beeran kara mise tii hore way iga khasaartay haddaan hadda beero haddana khatar igu timaado oo wixii bay iga dadaal geliyo seeroga badbaadi marka waxaan isleeyahay dadku runtii khatarahan soo laalaamanaya wacyiga in badan bay wax badan ka taraysaa laakiin inay la qabsadaan oo say tahay uga hortagaan ama ay waxayaan sida walaalkaad uu sheegayay oo kale oo dadkeenu ay ka guuraan nooca traditionalka ahayd way ku adag dadku inay xoolaha inay iska wareegaan oo socdaan xooluhu oo ay daaq raadiyaan daaqiina ma aan lahayninba roobaba aysan diinba waa khatar dadkeena runtii ay waxa weeye wajahayaan marka dadku inay calaf beertaan oo ay xoolaha xareeyaan oo xooluhuna nastaan calafna loo sameeyo wasaaradda xanaanada xooluhu runtii hadda way wadaa Kismaayo way ka bilowday degmooyinka dhan way ka wadaa in dadka waxa weeye calaf ay loo abuuro xoolihii ay calafkaas waxa weeye ku tiirsanaadaan annaga ka emergency ahaana dadku waxaan leeyahay emergency ka baxaano dadku ay beeraha tabcadaan xoolaha tabcadaan oo ay u diyaar garoobaan khataraha saas kale uga bixi karaan aad ma santa sagal faraxa soo noqotay sagal su'aasha aad qabto laba su'aalood baa qabaa su'aasha koobaad waxaan weydiinayaa Qaliif Xasan Xareed ee cilmi baaraha ah su'aasha waxay leedahay sidee la isku waafajin karaa xogta cimilada ee ay bixiyaan hay'adahaas waaga
sagal waan kusoo noqon doonaa qaniif waa maqlahaysaa sidee la isu waafajin karaa digniinaha ay bixiyaan hay-adaha samafalka iyo kuwa dhaqanka su-aasha waa caynka qaniif haye السلام يا مركل أخيارت وحن أملينا إنا تهاي سؤال يعني هيدهن إيو وحن نغيرني ساداش معاصر كي مدة قديمة قد سيلس كوا فجن كرامية واسدا وحن إسلايا هي وحي أباهيهين وحيابو وحا جرا موقتها علمي oo dadku aysan hal mar si isleeg u qaadan karin marka waxaan isleeyahay waxa jamcin karo oo isku duwi karo oo hab dadku ay u fahmi karaan ka dhigi karo wasaaradda federaalka ee daaqa iyo mataqaana iyo waliba hadda wasaaradda environment la sameeyay iyo wasaaradaha dhigooda ee maamul goboleedyada ka jira yaa luuqadaha ama eri cilmiyeedka la qoray ama astaamaha wax lagu yaqaano oo afka cilmiga ku qoran hay'adaha rasmiga ay bixiyaan ama waxyaabaha oo wax lagu cabiro oo wax sheegayo iyo sida loo isticmaalo iyo xogaha sida loogu kalsoonaan karo waa wax u baahan aan isleeyahay wacyigelin bulsho oo heerkeedu aad u sarreeyo waliba oo mawjado kala duwan iyo meelo kala duwanna laga sii daayo dooda laga sameeyo dadka dhexdooda laga sameynayo waxaan isleeyahay meelaha ugu dhow oo xogtaas lagu turjumi karo oo laga dhigi karo mid uu qof kasta fahmi karo qofka aqoon-yahanka oo cilmi baaraha ah ilaa qofka xoolaha la joogo luuqad ay fahmi karaan waxa ka dhigi karo oo isku duwi karo waa dowladda federaalka hay-adaha ama wasaaradaha waxaan u qaabilsan iyo kuwa federaalka oo inta aragti siyaasadeed oo midaysan ka yeesho xogtaana loo daadajiyo heer ay bulshada fahmi karto laakiin xaqiiq waxa ah inaysan bulshadu fahmi karin saadaalin qaramada midoobay ka timid kadibna wasaaradaha naga ay sidooda u soo qaateen oo eri cilmiyeed ku qoran oo hal ku dhigyo cilmiyeed ku qoran oo waxa la dhahaa istilaaxaadka ama terminology-ga cilmiga ah ku qoran bulshada inaysan wax badan oo saameyn ku yeelan doonin baan boqolkiiba boqol aaminsanahay barnaamijyadaas waliba waa inay qayb ka noqdaan dadka cilmiga u saaxiibka waxaan fikirka ka haysta iyo culummada intaba saasaan dhihi lahaa Catoosh aad baad u mahadsantahay dhegeysta kalan jeclahay inaan u baaqo anigoo idin xasuusinaya in doodeennii aan bartanka kaga jirno laakiin su-aal kalaan rabaa inaan wasiirka aan ku soo dhoweeyo qaabkee loo gaarsiin karaa wacyigelinta dadka biyola'aanta ay haysato biyola'aanta arrinta biyola'aantan jeclahay waxaanan rabaa maadaama hadda aad geda ka timid muddona ku maqnayd jubbada hoose iyo gedabo inaad arrintan si fiican oo faaqidsan noogu sharaxdo qaabka loo gaarsiin karo wacyigelinta dadka biyola'aanta ay haysato wasiir haye waad mahadsantahay Catoosh runtii waxaa problem weyna runtii oo intaan deegaanada maraynay waxyaalaha la kulmayna waxaa ka mid ah dad fara badan oo tuulooyin degan oo deegaano la og yahay oo la yaqaano oo la garanhayo oo biyo laga heli karin laga qodi karin biyo mareen aan lahayn oo markii xataa roobku daan biyo mareen lahayn bay dadku degayaan marka dadku biyo la'aanta jirtay hadda dadku way wada saameyn guud baa wada jirtaba oo hadda anaga Jubbaland waxaa ka wada jirtaa runtii magaalooyinka inta ugu badan beediyaha iyo tuulooyinka saameyntu way ka jirtaa marka sida lagu gaarsiini karo waxa weeye dadka in loo calaamadeeyo loo sheego meelaha biyaha laga heli karo meelahaana dadku ay degaan oo deegaanadan iska degaa ee goobaha biyaha laga helaynin ee fog adag tahay in geological survey laga sameeyo laga helay dadku inay ka guuraan way ka fogaadaan xoolahoodana si biyo uga heli karin khatarra ay ku sugan yihiin sida aan ognahay Jubbaland saddexda gobol baa waxay markii Soomaaliya la yiraahdo dowladda Soomaaliya 1974 daba dheer markay dhacday kadib waxay Soomaaliya dowladda Soomaaliya ay samaysay barnaamij la yiraahdo rural development campaign oo la yiraahdo barnaamijka horumarinta reer miyiga wacyigelin oo guud oo la sameeyay xoogga wuxuu saarayay barnaamijkaasi oo projectyo waaweyn oo baad dhaamkii faanor markii la qodeeyay oo runtii ka horreeyay xilliga isaga la sameeyay wax la yiraahdo water for all in la sameeyo biyo qof walba inuu heli karo daraasada runtii waxay muujinaysay deegaanadan Jubbaland gobolka Gedo iyo Jubbada Hoose in ay ku badan tahay cusbo ay adag tahay in laga helo biyo in badan oo kamid ah deegaanada ka mid salaad Kismaayo markii la yiraahdo si kasta oo ceel 1 mitir ah la qoday biyo macna laga helayo inta degmada Kismaayo ay ku fadhida in badan oo kamid ah biyo way adag tahay laga helo sidaa darteed dowladda Soomaaliya biyo waxay ka soo jeeday webiga iyo doobiga ka soo jeeday haddana dowladda Jubbaland wasaaradda biyo ay wado halka ay laga soo jeedo degmada afmadu gudaheeda marka timaado ceelka gaaban mooyaane iyo lagta meelaha laga qoday maahna way adag tahay in biyo macaan laga helo magaalada gudaheeda
haway culays badan baa ka jira degmada ceel waa saas oo kale degmada badhaana inta ugu badan xeebaheedoo dhan laga soo bilaabo kaamboori ilaa kismaayo biyo macaan lagama helayo dad baana degan marka ninka buurgaaba ku nool kaamboori ku nool wuuba arkaa inuusan biyo heli karin marka in dadkii waxa weeye hadda wasaaradda biyuhu waxay wadaa waxa biyo macaaneyn in laga sameeyo webiga badda agagaarkeeda in laga sameeyo ama ceelo loo qodo marka dadka in runtii waxa weeye loo sheego deegaanada Jubbaland oo khataraan haystay ka mid tahay inay nagu badan tahay cusbadu ceelasha in laga helanayo adagtay xal dheer laga qodo ceel waaqdi ka jirtaa garbaharri bay ka jirtaa xataa ku degmooyinka webiga leh yee adag tahay in ceel waxa weeye laga qodo ceelalka gaaban oo dadku ay ka faa'iideysanayaan u dhowmaan webiga maahan haddaad ka baxdo baar dheer xoogaa ka durugto haddaad ka durugto luuq haddaad beled xaawo inaad biyo heshaayo ceel laga qodayo culays badan baa runtii ka jira marka waxaan isleeyahay runtii dadka inaan ugu wacyigelin waxyaalaha hadda u tegaynay bay ka mid ahayd in dadka aan u sheegno khatartan biyo la'aanta ay hadda ay wajahayaan inay berrina imanay karto marka in loo diyaar garoobo oo dadku waxa weeye ay runtii meelaha biyo la'aanta ay xoogga ay saarayaan meelaha biyaha dadku inay deegaankooda mar walba xoogga inay saaraan aad oo maasanta Cabdullaahi Maxamed oo dhegeysta toos khadka ugu jira yaan jecelnahay inuu su'aashiisa soo gudbiyo Cabdullaahi xagee joogtaa su'aashaadana maxay tahay Cabdullaahi waan ku soo noqon doonaa Axmed Cusmaan mudugna ka soo shaqeeyay iyo galgaduud bayaan jecelnahay inaan isla su'aashaasi weydiino dadka hadda biyo la'aanta ay haysatay abaarta ku jira wacyigelin noocay helaan waa mahadsantahay cabdirasaaq catosh wacyigelinta ugu muhiimsan oo dadku ay helaan meelaha baadiyaha ku nool waa midda fariimaha ay dowladdu dirto ama hay'adahan humanitarianka ah ama UN agencies-ka ay diraan taasaa ugu weyn ama local radio ha laga dhegeysto maxay taane ama fariimaha ku soo dhacdo wacyigelinta aadka loogu baahan yahay oo ka maqan waxay tahay midda maxay taane local community-ga dhexdeeda ay tahay inay isku sameeyaan oo ah inay aaminaan in abaarta ay noqotay abaar frequency-geeda uu batay oo sida hore aan ahayn sidaa darteedna ay helaan ay bedelaan wacyiga noloshooda fariinta hadda ay helaan kaliya waa early warning system oo ah in abaar la saadaalinayo ama fatahaad la saadaalinayo wax noocaas laakiin ma haystaan dadku wacyi ku aadan in ay maxay taane bedelaan qaabka u nool yihiin si ay livelihoodkooda u badbaadiyaan taa ayaa aad gaab xoog looga jira dadku sidii raba inay hore rabaan inay u noolaadaan oo hadda meel in loo guuro taana ma soconayso marka wacyigelinta hadda bilowga ah waa early warning systemka oo asagana sidaan hore hadda u sharaxay baadiyaha aan si fiican loo gaarin access fiican una jirin hadda waxaa loo baahan yahay wacyigelin ku aadan dadku inay bedelaan qaabka ay u nool yihiin dowladduna ay ka caawiso barnaamij strategy diyaarsan oo ah oo adkaysiga aafooyinka haddii la helo adkaysiga aafooyinka oo ay dowladdu strategy diyaarsan dadkuna wacyigooda sare loo qaado ku aadan inay bedelaan qaabka u nool yihiin waxaan isleeyahay dhibaatadu intaan waa ka yaraan lahayd aad u mahadsantahay Atish aad baa u mahadsantahay waxaan jeclahay inaan hal mar dadka xasuusiyo in wixii fariin ah ay noogu soo reebi karaan lambarada golis iyagoo isticmaalaya ama golis ama hormuud 280 oo lambarka gaaban ah WhatsApp-kana waa kan shaashada ku qoran wasiirka gargaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland ila jooga wasiir waxaan rabaa daqiiqad inaad ku soo koobto qofka haddii uu helo fariin degdeg ah oo khatar ka digaysa wax ma oga tari kartaa in xoolihiisa ay ku badbaadaan catosh qofka haddii runtii uu helo khatar fatahaad biyo soo socda oo ku soo wajahan wax badan bay ka taraysaa runtii waana aragnayba dadku inay ay ka cararaan meesha iyada ah oo ay ka fogaadaan wax badan bay ka taraysaa beeraleyda caawinaysaa xoololeyda caawinaysaa waxay caawinaysaa dadka degan ee deegaanka ee webiga dadka u dhow ee fatahaadu inta badan ay saamayso ayay caawinaysaa weliba dadka hadda annaga reer Jubbaland oo kale wax badan bay runtii ka soo arkeen oo dadka wacyigooda sidii hore ma aha khatarta way soo arkeen 2024 liinadii jirtay wax badan bay dadka tustay marka fariimahaasi muhiim bay hadda yihiin inaan gaarsiino dadka oo aanu ka shaqeyno si u gaari lahaydeen wax badan bay runtii noloshooda ka badbaadinaysaa aad u mahadsantahay Dr. Khaliif haye daqiiqad ama 2 daqiiqo isla su'aashaasi ustaad waxaan isleeyahay waxa uu loo baahan yahay waxay tahay wacyigelinta dadku way helaan laakiin ma xoog badno marka ficila loo baahan yahay mararka qaarkood ficila loo baahan yahay مثلا markii October oo kale wasaaradda
wasiir cabdiraxmaan oo kale ay ogaayeen inay waxaan soo socdaan meesha hadda safarada geday iyo jubbada dhexe iyo jubbada hoose uu ku maray wasiirka waxaan rabay inuu qayli dhaanta la bilaabay xilligaas oo kale ila kulanka dadka iyo abaabulka markaas oo kale waxaa laga yaabaa neefka xataa inuu meel biyo la gaari karay oo xoogaa jiir u lahaa marka waxaa muuqato gaabis dhinac walba ah dadkina uma dhaganuglo fariimaha gaaro oo lagu sheegaya inay dhici karto khataro abaaro dadki fariinta uma dhaganuglo dowladaha iyo hay-adaha dadku ay fiirsanayaan ayaguna dhankooda gaabis ka yihiin marka waxaa la isku baraarugaa mar ay xeerii fandhaal kala dhaceen oo wax la qaban karaba ay yar tahay oo resource yar oo dowladda haysato ama hay'adaha hayaan meel ay aadiyaan iyo meel ay ku bixiyaan aysan aqoon dadkina ay noloshoodaba halis gashay marka digniintan xilliga hore ah meel ay martaba ee la bixiyey xilliga la bixiyo in lagu daro maxaa la jiray aadin iyo socod iyo wacyigelin iyo ficil baan maaragta ku waxayn lahaa atoosha wax yar haddaad iyo ogolaataan wax yaroo waxaan soo mithaal waxaan dhaata yaroo waxaan dadka la wadaagi lahaa waa ii muhiima ila tahay مثلا ضد اسك دغه تري وعي جلين لا سميهي واي hay'ad caalami ah ama musiibo wadan ku dhici lahayd dadkii deegaanka ay iska dhaga tireen natiijo ka dhalatay iyo dad inta la wacyi gelinta qaatay natiijo ka dhalatay inaan wax yar maaragtay say muhiim u tahay aan la wadaago daqiiqad ku soco waa soo koobaya tusaalaha fiican dad inta loo digniinta qaatay wadanka Netherland 1953 waxa ka dhacday saadaalin fatahaado in wadankaas ay harqin doonaan dadkii waxay u dhagan nuglaadeen in la qaato digniintii saynisyahanka ka timid loona dhagan nuglaado dadku marka waxay bilaabeen talada saynisyahankii iyo culimada saadaasha ay bixinaysay intaas kaliya laguma ekaanin waxa la yiri si qatarta fatahaada looga hortago mashruucyo degdeg ahna aan sameeyno kadib Delta Works program اللي هذا اللي سميه برحيرنا waaweyn in la sameeyo si biyaha soo jabsan lahaa oo tuulooyinkii degmooyinka nugul gali lahaa qof walba marka dhismihii iyo cagafkii iyo programkii ka qayb qaatay barnaamijka asaga ahaa wuxuu badbaadiyay dhulka la dhahay Netherland oo dhan qatarta markaas taagneed inay uga badbaadaan biyo-xireennadii markii qataraha dhamaadeen ilaa ay haddana waxa loo isticmaalaa wax soo saar beereed iyo dalxiis taas marka waa marka digniin loo dhagan nuglaada natiijada fiican oo ka dhalato dhanka kale 2010kii wadanka Pakistan bartamaha iyo waqooyiga Pakistan waxa ka dhacay doofaanada maansuunka la dhahay wacyi gelinay dawladda isticmaashay laakiin dadku ficilka si fiican uma qaadanin oo wadamada islaamka waxa laga yaabaa waxa la dhahaa qadartu in ilaahay uu u daayaan wacyi gelinta aysan u dhugnaanin 20 milyan oo dad ah yaa ku hooy iyo cunno iyo deegaan iyo caafimaad waa barnaamijka asaga marka labadaas barnaamij waxaan u soo kala qaatay haddii digniinaha la aqbalo natiijada fiican oo ka dhalan karto xataa mararka qaarkood in hab dalxiis iyo wax soo saar ayba dhali kartaba iyo in bustal hogado natiijada xun oo ka dhalan karto intaas ku soo gabagabeyn lahaa waa mahadsantiin aad u mahadsantahay wasiir cabdiraxmaan ay farta u taagan tahay wasiir aye وما صدق عطوش أنه كجبلان رنتي بوقشنا هذا أنه ودي دجاجنا ده عربينا الصحة ما يصيرين تجنين تل وأنت قرأت رنتي وأنا مثل هاي تيم كبراروك إن الحل جدا نكسو هذي أنا أتصل يوين إن شاء الله سيدر درجلي واحد أنا كتر كرتو وحاوم يمصرين هذول من دجاجنا دول مرنا واحد يسكت بريد كارمها جركاركا ياكتفيت قرأنت جودية عبارة هاي دجموينكا إن أنا وحوي ده تشينو فهاي لكن بشي تمنات ما نصوب لما نرنتي وحل الرابط كده يطاهي إنه خطر جرتو أنه دجاجنا ده ينبضر كم ذا وعي قرينت كسب اللونج وحن رأي كلية إن إلى هذا حضنا حالة عبارة دجاجنا ده جبلان يسيقوا ذا الصومالي رنتي وميرا ضد بمريسا سالاش حتى لفت هذا صوب حيسا قصة جوجل أدو يرتا روك جوجل جبلان waxaan guga inay qiyas saadaara waxa jirta inta ugu badan geedu ka soo bilowdaa oo waliba wiiga saddexaad ee abriil baa leeyahay jiraan dhaxla ama bisha wiiga labaad waxay hadda tilmaamayaan inuu roobku dhici karto inuu daaho oo abriil baa roob la helin saan caadi naqaanada gugu wuxuu oran jiray abriil marka abriil lafteedii baa waxa leeyahay roobku waa yaraani karaa khatartu inay sii jiri karto marka qiyaas hadda oo ku jiro jilaan هذا أبريل حتى راح ويا روبكي ودي بدو خطر كيما
marka dadkeen waxaa ugu baaqanaa isku tashi iyo badbaadinta dadkeenana ka wada shaqayn insha Allah aad baad u mahadsantahay wasiirka gargaarka iyo kahortagga masiibooyinka cabdiraxmaan maxamed dhiriq dowlad goboleedka jubbaland dr khaliif xasan xareed cilmi baare muqdisho khadka uga jiray iyo axmed cabdi cusmaan oo ah beeraley calafka xoolaha ka shaqeeya afgooy joogay dhammaantiin waad mahadsantihiin anigoo cabdirasaaq catoosha iyo dhammaan bahda baraarug waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo